Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada kanaalka Daruuraha. Waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya guulaha iyo horumarka muuqda ee uu ku tallaabsanayo waddanka Turkiga. Hadday ahaan lahayd dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada, siyaasadda, caafimaadka, militariga iyo tiknoolajiga. Waxaana Turkigu haatan uu dadaal weyn ugu jiraa inuu ka kaaftoomo ku tiirsanaanta waxyaabaha lagu farsameeyey dibadda, isagoo qorsheynaya in sanadka 2023 uu gebi ahaanba ku tiirsanaado waxyaabaha lagu farsameeyo gudaha dalkiisa oo ay mahaddeeda leeyihiin aqoon-yahanada u dhashay dalkaasi. Si aad uga mid noqoto quwadaha waaweyn ee dunida, waa inaad ku soo baastaa imtixaano badan, kana soo gudubtaa caqabado waaweyn si aad u soo gaarto heerka dalalka horumaray ee ku tashaday in intii karaankooda ah ay ishortaagaan awood kasta oo cusub oo qalqal gelin karta boqortooyadooda. Haddiise aad hesho sirta horumarka oo aad noqoto dal dhinac walba oo nolosha ah ka dhisan, isku filan, hadday ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha, waxbarashada, farsamada dawada, farsamada hubka, tiknoolajiga iyo guud ahaan aqoonta kala gedisan, waxaa markaa adkaanaysa in cagta madaxa lagaaga sii hayo. Dowladda Turkiga ayaa ku guulaysatay inay samayso dayax-gacmeedkii ugu horreeyey ee lagu sameeyey gudaha dalkeeda oo ay muddo ku howlanaayeen saynisyahano u dhashay Turkiga. Waxaana dayax-gacmeedkan uu Turkigu hawada u diri doonaa sanadka soo socda ee 2021 iyadoo loo adeegsan doono ilaalinta iyo la socodka dhaqdhaqaaqyada. Dayax-gacmeedkan oo noqonaya kii ugu horreeyey ee uu Turkigu sameeyo ayaa lagu magacaabaa IMCA, waxaana qaybtiisii ugu dambeysay ee ka dhinnayd rakibaaddiisa lagu soo bandhigay xarunta sayniska iyo tiknoolajiga Turkiga ee Ankara, iyadoo qamar sinaacigan uu soo gudbin doono muuqaallo tayadoodu aad u sarreyso oo wax badan ka caawin doona ciidamada Turkiga. Madashii lagu soo bandhigayay qaybtii ugu dambeysay ee dayax-gacmeedkan Turkiga waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka difaaca Turkiga Hulusi Akar, wasiirka waxbarashada iyo tiknoolajiga Mustafa, iyo wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha Caadil Khara Ismaaciil Oglu. Waxaana wasiirka gaashaandhiggu uu sheegay in dhiirigelinta hawsha dayax-gacmeedkan uu kaalin weyn ka qaatay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, oo uu xusay in casrigiisa uu Turkigu guulo waaweyn ka gaaray dhinacyo kala gedisan oo ay ka mid tahay waxbarashada, militariga iyo caafimaadka. Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Turkiga Ismaaciil Xaqi ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in dayax-gacmeedkan cusub ee uu Turkigu samaystay oo tijaabo oo keliya u harsan tahay uu wax weyn ka caawin doono Turkiga, isla markaana qamar sinaacigan uu soo gudbin doono sawirro tayadoodu aad u sarreyso, isagoo sidoo kalena awood u leh inuu muuqaallo video ah oo toos ah uu soo gudbiyo. Waxaa kale oo intaa dheer in dayax-gacmeedkani uu soo gudbin karo waxyaabo aad u yaryar sida suuradda hal qof oo dhulka maraya oo muuqaalkiisana si fiican loo arki karo. Waxaa Turkigu uu qamar sinaacigan ku kala ogaan doonaa waxyaabaha dhulka ka socda waxa ay yihiin, taasoo ciidamada Turkigu ay aad ugu baahan yihiin si ay ula socdaan bartilmaameedkooda. Waxaa kale oo lagula socon doonaa satellite-kan dadka laga shakisan yahay, iyadoo muuqaaladani ay si toos ah hawada ugala socon doonaan sirdoonka Turkiga oo kadibna dhulka ka howlgelin doona kooxihii fulin lahaa howlgalkaasi. Intaas kuma koobna oo keliya howlaha uu dayax-gacmeedkani u fududeyn doono Turkiga, iyagoo kula socon doona dhanka beeraha iyo ka hortagga musiibooyinka dabiiciga ah. Markii xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ay ku guulaysteen hoggaanka Turkiga, waxa ay shaqada ugu badan geliyeen dhanka horumarinta gaashaandhigga. Tusaale, waxaa madaxweyne Erdogan uu warshadaha hubka sameeya ee Turkiga gaarsiiyey in 70% hubka ay soo saaraan ay noqdaan kuwo gudaha dalka lagu farsameeyey, halka markii hore waa intii uusan Erdogan la wareegin talada 2003 farsamada gudaha ee hubka Turkigu waxa ay ahayd 20%. Turkiga oo markii hore ku tiirsanaa hubka uu ka soo iibsado dalalka horumaray ayaa waxaa 5 sano ee lasoo dhaafay u suura gashay inuu hubka uu isagu farsameeyo sida diyaaradaha droniska ee bilaaduuliyaha ah iyo gawaarida gaashaaman ee qoryaha culus ku rakiban yihiin uu u dhoofiyey qaar ka mid ah kuwa uu markii hore hubka ka soo iibsan jiray sida Mareykanka, Jarmalka iyo Holland, iyo kuwa uu u iibgeeyey sancadiisa cusub sida Sacuudiga, Turkmenistan, Qatar,
Cumaan iyo Ukraine. Shirkadaha sayniska iyo tiknoolajiga Turkiga oo maalgelin ka helaya xukuumadda dalkaasi ayaa juhdi badan ku bixiyay inay aqoontooda ugu faa'iideeyaan dalkooda, kagana saaraan baahida dhanka tiknoolajiga iyo ku tiirsanaanta dowladaha ajnabiga ah. Dowladda Turkiga ayaa haatan soo saarta hubka fudud, sawaariikhda, gawaarida militariga ee gaashaaman oo noocyo kala duwan leh, maraakiib, diyaaradaha dagaalka, iyo weliba diyaaradaha kale ee gaarka ah ee droniska ee weerarada qorshaysan fulin kara sida noocyada loo yaqaan Birqadar iyo Aqanji. Intaa kuma koobna hanka Turkiga ee dhanka sancada hubka, waxaana haatan ay ku howlan yihiin samaynta maraakiib waaweyn oo xambaara diyaaradaha dagaalka sida kuwa ay ku dhaartaan Maraykanka iyo Faransiiska, iyo weliba sistamka casriga ah ee difaaca gantaalaha. 4 shirkadood oo waaweyn oo Turki ah oo soo saara hubka ayaa soo galay liiska wargeyska Maraykanka ee Defense News ee sanad walba lagu soo bandhigo 100 shirkadood ee ugu horeeya sancada hubka ee caalamka. Dowladda Turkiga oo hubka ay dhoofisay sanadkan 2020 dhaqaalaha ay ka heshay uu ka sarreeyo $5 bilyan ayaa waxa ay ku hanweyn tahay in 2023kana ay sare u qaaddo dhoofinta hubka iyo waxyaabaha la xiriira hawada sare, iyadoo gaarsiin doonta inay sanadkii ka faa'iido $25 bilyan. Marka la dhammeeyo tijaabada dayax-gacmeedka uu hawada u diri doono Turkiga sanadka soo socda, ayaa haddii lagu guulaysto waxaa Turkiga uu si rasmi ah u bilaabi doonaa inuu soo saaro dayax-gacmeedyada, kuwaas oo uu ka iibin doono dalalka caalamka. Maanta waxaa Turkiga tamarta uu isticmaalo uu 46% ka dhaliyaa cadceedda iyo hawada, waxaana ay ku tala jiraan inay sare u qaadaan ka faa'iidaysiga tamarta noocyadeeda kala gedisan sanadka 2023 oo ay gaarsiin doonaan ilaa 56%. Dhanka tiknoolajiga, waxaa kordhay xarumaha Turkiga ee qaabilsan hawshani, oo sanadkii 2001 uu dalkaasi lahaa 2 xarumood oo qura, halka 2019kiina ay tiradaasi gaartay 84 xarumood oo tiknoolajiga ku qaybsan, kuwaas oo ku kala yaala 56 magaalo oo Turkiga ka tirsan. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu kal hore sheegay in sidoo kale dalkiisu uu 2022 hawada sare u diri doono dayax-gacmeed dhinaca isgaarsiinta ah oo lagu farsameeyey gudaha Turkiga, kaas oo lagu magacaabo Turksat 6A, waxaana satellite-kaas uu indhaha u furi doonaa Turkiga maadaama uu noqonayo mid dadka sameeyey ay Turki yihiin, qalabka lagu sameeyeyna uu yahay kuwa laga keenay gudaha dalka oo aan lagu siyaadin hal shay oo dibadda laga soo waariday. Shirkadda HSBC Holdings oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn caalamka ee dhanka sarifka iyo adeegyada maaliyadda ayaa warbixin ay soo saartay sanadkii 2019 waxa ay ku sheegtay in Turkiga uu ku jiro kaalinta 7aad ee dalalka ugu nolosha iyo shaqada fiican adduunka, halka ciidamada Turkiguna ay ku jiraan kaalinta 10aad ee ciidamada ugu awoodda badan caalamka. Turkiga oo ku jira liiska 20 dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa waxa ay sanadihii dambe ku tillaabsadeen horumar baaxad leh, iyagoo xariga ka jaray mashaariic waaweyn oo ka yaabisay dalalka qaaradda Yurub, sida isbitaalka ugu weyn qaaradda Yurub, garoon diyaaradeed oo ka weyn dhammaan kuwa ku yaala Yurub, iyo mashaariicyo kale. Isku soo wada duubo, Turkiga oo aan lahayn shidaal, gaas dabiici ah iyo macdan qaali ah toona ayaa waxa uu gaaray guulo taariikhi ah kadib markii qiimaha dhammaan waxyaabihii ay dibadda u dhoofiyeen sanadkii la soo dhaafay ee 2019 ay ka sare martay $180 bilyan. Isla markaana Turkigu waxa uu rajaynayaa in dhammaadka sanadkan aan ku jirno ee 2020 waxyaabaha ay dalalka caalamka u dhoofiyaan ay uga soo xaroon doonto lacag ka badan $190 bilyan oo Maraykanka ah. daruuraha